sida afayeenka oo sheegaba shirkaanu waxaa looga hadlayay xaaladda dalka iyo gaar ahaan shirka hadda xalana ka socda. Sidaa wada ogtihiin dalkan dowladnimada hadda socota burburkii kadib dad Soomaaliyeed oo waxgarada ay isu tagay waxay soo qaateen nidaam federaal. Annaga intii aan joogna meesha cidna nama weydiin federaal ma rabtiin ma rabtiin lama dhihin, laakiin waxaan ku khasbanay in aan hogaansano wixii dadku ku soo heshiiyeen Soomaalidu ku soo heshiiyeen. haddii la rabo marka in laga guuro nidaamka federaalka waa in haddana lagu heshiiyaa waxyaabaha marka aan ka walaacsanahay oo aadka aan uga soo horjeedno in sharcigana la jibiyo federaalkana la dumiyo. waxaana u aragnaa taas inay horseedayso burbur dawladeed. waxa dawlad lagu yahay waa dastuurka, waxa la rabo in la wada ilaaliyana waa kaas. qolada ugu horeyso aan rabno inay ilaaliyaan dastuurkana waa dawladda. dastuurku wuxuu siinayaa madaxda iyo dawladda inteeda kale iyo shacabka Soomaaliyeed xuquuq iyo waajibaad kala duwan. qolo kastana waxaa laga rabaa inay xuquuqdeedana fiirsato, waajibaadkeedana gudato. waxaan aaminsanahay marka arrintaas dawladdu inay aad uga gaabisay. waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dawladda u dhaxeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda. maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin. arrintaas waxay dhiiri gelinaysaa in dalku kala furfurmo. waxaana u aragnaa khatar soo waajahaysa dawladnimada Soomaaliya. sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inay habboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen, laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiiri geliyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed, wadajirka maamul goboleedyada, dadkana dawladdana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga. maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiiba aan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta, waxyaabaha khaladka dhacayana lama habboona. sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dawladda iyo u dhaxeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo, haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo. taas waxaa sii dheer kalsooni darrada sii kordhaysa oo shacabka ku dhacaysa. waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorasho. doorashaduna waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed. waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda. waxaan ognahay dawladdu inay kaligeed gacanta ku hayso nidaamka doorashada una dhigayso sida ay doonto. sidaas oo kale waxaan ognahay arrimaha amnigu inay faraha ka baxeen oo weerarada ka dhaca hadda meesha saldhigga oo dawladda magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin kuwa hore, cabsidu inay sii kordhayso. sidaas oo kale dawladda waxaa loo abuuray inay u adeegto bulshada. waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid ah in jidadku sida afayeenka oo sheegaba shirkaanu waxaa looga hadlayay xaaladda dalka iyo gaar ahaan shirka hadda xalana ka socda. sidaa wada ogtihiin dalkan dowladnimada hadda socota burburkii kadib dad Soomaaliyeed oo waxgarada ay isu tagay waxay soo qaateen nidaam federaal. annaga intii aan joogna meesha cidna nama weydiin federaal ma rabtiin ma rabtiin lama dhihin, laakiin waxaan ku khasbanay in aan hogaansano wixii dadku ku soo heshiiyeen Soomaalidu ku soo heshiiyeen. haddii la rabo marka in laga guuro nidaamka federaalka waa in haddana lagu heshiiyaa waxyaabaha marka aan ka walaacsanahay oo aadka aan uga soo horjeedno in sharcigana la jibiyo federaalkana la dumiyo. waxaana u aragnaa taas inay horseedayso burbur dawladeed. waxa dawlad lagu yahay waa dastuurka, waxa la rabo in la wada ilaaliyana waa kaas. qolada ugu horeyso aan rabno inay ilaaliyaan dastuurkana waa dawladda. dastuurku wuxuu siinayaa madaxda iyo dawladda inteeda kale iyo shacabka Soomaaliyeed xuquuq iyo waajibaad kala duwan. qolo kastana waxaa laga rabaa inay xuquuqdeedana fiirsato, waajibaadkeedana gudato. waxaan aaminsanahay marka arrintaas dawladdu inay aad uga gaabisay. waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dawladda u dhaxeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda. maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin. arrintaas waxay dhiiri gelinaysaa in dalku kala furfurmo. waxaana u aragnaa khatar soo waajahaysa dawladnimada Soomaaliya. sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inay habboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen,
laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiiri geliyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed wadajirka maamul goboleedka dadkana dawladana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiibaan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacaya lama haboona sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dawladda iyo u dhaxeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo taas waxaa sii dheer kalsooni darrada sii kordhaysa oo shacabka ku dhacaysa waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorashaduna waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda waxaan ognahay dawladdu inay kaligeed gacanta ku hayso nidaamka doorashada una dhigayso sida ay doonto sidaas oo kale waxaan ognahay arrimaha amnigu inay faraha ka baxeen oo weerarada ka dhaca hadda meesha saldhigga oo dawladda magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin kuwa hore cabsidu inay sii kordhayso sidaas oo kale dawladda waxa loo abuuray inay u adeegto bulshada waxyaabaha soo kordhay waxaa kamid ah in jidadku xiran yihiin laba isu gudbi kartaa aysan jirin qof walba la weydiinayo dawladda ma shaqaysaa marka su'aashu waxay tahay oo dalkan xaq uma laha miyaa inuu ku socdo ku safro magaalada dhexdeeda ama banaankeeda qof aan dawladda u shaqayn arrintaas marka waxay saameyn ku yeelatay kala xiraashada magaalada waxay ku yeelatay saameyn dhaqaalaha waxa laga hadlayo waa dhaqaale muxuu ku yimaadaa muxuu ku kordhaa waa in badeecaduhu ay isu gudbi karaan waa in dadku isu gudbi karo waa in dhiirigelin ay jirto dadku inay wax soo saar u jeestaan taasna waxaa saldhig u ah amni iyo cadaalad labadiina ma jiraan maxaan ku yiraahdaa mararka qaar marka laga hadlo wax lagu dhaliilayo dawladda dad badan waxay u fasiraan si aan habboonayn in la dhaliilo dawladda waa waxa xisaabta loo sameeyay xisaabta waxay u taagan yihiin inay dhaliilaan dawladda toosiyaan waxay u taagan yihiin inay soo bandhigaan barnaamijkooda siyaasadeed ee loogu diyaar garoobayo doorashooyinka marka shacabka Soomaaliyeed waxay u soo mareen inay inta hadda ay haystaan ay helaan dadaal fara badan iyo sabar badan iyo dhibaatooyin fara badan marka waxaan leenahay ma habboona in maanta anagoo joogno dib loo celiyo annagana ma habboona inaan fiirsano ka aamusno waxaad wada ogtihiin aniga madaxweyne xasan madaxweynaha markii la doortay labada garab aan ka istaagnay commitment yaan siinay inaan la shaqeynayno laakiin dhinaciisa ka shaqeey weys qof walba oo hadda wax tabanaya ama ha noqdo maxaa la yiraahdaa madaxweynaha maxaan ku yiraahdaa Jubbaland Axmed Madoobe ama ha noqdo Siciid Dani labaduba shirkii Garowe aan ku galnay waxay diyaar u ahaayeen oo soo bandhigeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dawladda laakiin madaxweynuhu asaga qaatay shirki ka dambeeyay oo la isugu yimidana waa lagu heshii waayay dawladda goboleedyada kale oo hadda shirka fadhiyana sidoo kale u ballan qaadeen dalkan waa dawladnimadiisu hadda kabashay ku jirtaa ma rabna in dib loo celiyo waxaan rabnaa in la ilaaliyo dastuurka waxaa la jebiyay dastuurkii waa laga leexday meelaha la iska dhigay waxa aan dawlad ku nahay oo aan ku kala dambayno aan ku wada soconana waa dastuurka haddii dastuurka meel la iska dhigana dawladnimo ma jirayso marka annaga waxaan rabnaa inaan farta ku fiiqno khaladaadkaas muuqda oo aan laga aamusi karin oo ay suuragal tahay dawladnimadu inay u dunto inay yihiin kuwa khatara dadka Soomaaliyeedna ay ku baraarugaan waxa aan ka hadlayno waxa naga hadal siinaya hadal jacayl maaha waxa naga hadal siinaya waaqic jira xanuun dadka Soomaaliyeed taabanaya khalad waaweyn oo jira oo taariikhi oo laga aamusi karin oo qofka ka aamuso bari su'aasha la weydiin karo qarankan marka uu dhumaayo oo uu dumaayo qofka wax gartay inuu ka aamuso maaha dawladnimaduna waa wax la qawaacid iyo usus ay ku taagan tahay haddii laga leexdo dawladnimo lama arkaayo kursiga waa lagu tartami karaa wax culaysa ma leh laakiin waxaa la rabaa dawladnimada inay noqoto mid la wada leeyahay laga wada shaqaynayo qof la arkaba uu ka taagan yahay geestiisa kana celiyo hadday noqoto dawladnimo dad kooban gacanta ay ku hayaan waxay doonaan ka sameeyaan arrintaas waxay keenaysaa khatar weyn maalin walba waxaa laga hadlaa dhaqaalaha kordhay shaqo abuura la helay marka aad weydiiso dadaa shaqada laga saaraa
dadaa shaqada laga saara haddii xataa dad la gelinayo kuwa hore ugu jiraa laga saaraa dhaqaalaha ma wuxuu kusoo kordhayaa jidadku inay xirmaan oo wax soo saar uusan jirin oo wax isu socon kara aan la arkin dowladda dadka marka ay ku dhex jiraan laba cadow oo midna al-shabaab yahay midna oo dowladda yahay dhaqaalaha meesha uu ka kordhay annagu ma garanin ma beerihii wax soo saar ku kordhay ma warshadaa la keenay ma dad shisheeyaa maalgashi samaynaaya ma soomaaliya maalgashi keentay waxay u baahan tahay dhaqaale inuu kordho political stability u baahan political stability-na ma jirto maanta qof dowladdaas ka tirsan ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo oo loo ogol yahay inuu xaqa ka hadlo ama runta sheego ma jirto annagana hadda asbaabta loo qaylinaayo oo maalin walba laysu caaynayo waxaa ugu badan maxaa runta u sheegaysay cimrina waa joognaa xilkii ugu weynayna waa soo qabannay maanta maalinaan aamusi karna ma aha kumana baqayno wiilal yaryar oo masaakiina oo ama qurbaha jooga ama laman rabaabiyey ee la soo adeejiyey ay caytameen annaga xaqa ugama istaagayno dalkan annaga waxaan soo hogaaminay iyadoo xaaladiisu adag tahay falilaahi alxamdu in laysdoortaan keennay waa nagala guulaysta waxaan dhahnay wakaas maalinna ma hor istaagin laakiin wixii aan ku soo dadaalno marka ay dumayaan waxaan ku khasbannahay inaan u istaagno mar kale oo aan idhaahdo maya qaranka yaa la dumina waxaana aaminsannahay dowladdii maxamed siyaad barre iyo dowladihii ka horreeyey haddii soomaalidu u istaagi lahayn sidaasoo kale waxba nagama hallaabeen adduunka kaligeen maahin xurriyaddu waa shay qaali ah mana laga tanaasuli karo xurriyatu lqowlka ama xurriyatu tanaqul ama xurriyad ayan kaanad waa inay dadku haystaan markaasay dareemi karaan dowladdu inay dowladdoodii tahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u dhaafayaa madaxweyne xasan sheekh isagaa dhammaystira insha allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدحوين الشريف آدي آد أماتسن يهي آدي آد أيو وفاهفاهيي حقائق أما حقيقة دبتا إمانتا كجرت دالكين وحا مهمكا وحييهين وحا لسلقوق يهي إن لسكوع العلية معنا بدل ما سمينيها لكن إن لفهمه انت وضد لصامري وحي للشاقة يودن أنه haddii aan hadday xukun jacayl tahay iyo haddii tale far adeegi tahay iyo madaxweynahana uu ka hadlayo dhowr maro horena waa ka hadlay annagaaba soo dhignayba geedda annagaaba muxuu ahay diyaar u ahayn wixii shalay annagoo aan marka xukunka iyo talada uga tagnay xushmadda dadka codkiisa aan u hayn rabitaanka dadka soomaaliyeed codka dadka soomaaliyeed ilaalinta dadka soomaaliyeed wixii ay ku heshiiyeen oo waxaanaan sidaanaan dowladnimada noocaan ahaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa xukunka in laysu badbedelaan rabnaa siyaasaddu inay midbaas tala badan ku jirta tahaan rabnaa nidaam federaalism oo mid qarankan uu naga dhexeeya midka kalena shu-uuntayna hoose aan u kala dhaqanaan rabnaa dadka hadalladii ay yiraahdeen ayaa annagu aan ku daba joognay aayado qur-aana maaha xeerarka iyo nidaamka dadku ay degsadeen ay ku heshiiyeen laakiin waan ognahay oo xeer weligan uu noo deganaa jiray haddii uu shaqayn waayo ama dhibaato ka timaado intii degsatay intii isku timaaday tiraa xeerkan waana anfici waaye dhibkaanuu keenay mushkiladdii aan rabnay inuu xalliyo wuu xallin waaye warsaan ha la yeelo laakiin waa tuuraynaa beddelna uma hayno laakiin asiga magaciisa intaan sheegnaan annaguna sidaan rabnana waa ka yeelinaa waxyaabaha muxuu ahay dhibaatadu ay ka jirto waaye horeyaana loogu soo arkay dowladdii dalkan ka jirtay markay xeerarkii iyo nidaamkii iyo shuruucdii iyo rabitaanka dadka iyo dareenka dadka ilaalin weyday ayadoo midaan maanta haysana ka xoog badan oo ka awood badan oo ka magaciisa badan ay duntay ay shaqay weyday marka waayo aragnimaan u leenahay da'deedii aan joognaa waa soo joognay waa soo aragnay wixii shalay aan ku qaladnay mar kale inaan ku qaldanno ma rabno dowladdeenna waa dowladdeenni haddaanan dowladnimo rabin oon qaranku inuu dhismo aanaan rabin dowladdan maanta waxay samaynaysay walax kasi dhib badan aan samayn lahayn annaan samayn karnay weliba laakiin waxaan u samayn weynay oo gacnaha naga dabraayay xeerka iyo qaanuunka jira rabitaanka dadka inaan dhowrno oo annagu aan adeegayaal ahayn oo dadkuna adeegsadeen ii soo qaba shaqadan bes waa mahadsan tahay inta iska dhigay caliyaa ii soo qabanaya maalinta dambena haddiina la yidhi inaan u hoggaansanon qaban waxaan ka hadlaa marka inaan rabo intii dowladnimada soomaaliyeed lasoo dhisayey carta laga soo bilaabay ilaa maanta aan joogno waa dhutinayna waxaan la dhutinaynay somalilanaa naga maqan war walaalihii ha la jiriyo
oo hala waxeeyo madaxweyne shariif waqtigu madaxweynaha waa ogtihiin juhdiga uu ku bixiyey aniga intaan taladahay waa ogtihiin juhdi aan ku bixinay mar walba dadka Soomaaliyeed aan rabitaankooda ka turjumayn oo midnimada iyo walaaltinimada in dalkii la isku soo noqdo rabeen sida afayeenka oo sheegaba shirkaanu waxa looga hadlayay xaaladda dalka iyo gaar ahaan shirka hadda xalana ka socda sida wada ogtihiin dalkan dawladnimada hadda socota burburkii kadib dad Soomaaliyeed oo waxgarada ay isu tagay waxay soo qaateen nidaam federaal annaga intii aan joogna meesha cidna nama weydiin federaal ma rabtiin ma rabtiina lama dhihin laakiin waxaan ku khasbanay inaan hogaansano wixii dadku ku soo heshiiyeen Soomaalidu ku soo heshiiyeen haddii la rabo marka in laga guuro nidaamka federaalka waa in haddana lagu heshiiyaa waxyaabaha marka aan ka walaacsanahay oo aadka aan uga soo horjeedno in sharcigana la jibiyo federaalkana la dumiyo waxaan u aragnaa taas inay horseedayso burbur dawladeed waxa dawlad lagu yahay waa dastuurka waxa la rabo in la wada ilaaliyana waa kaas qolada ugu horeyso aan rabno inay ilaaliyaan dastuurkana waa dawladda dastuurku wuxuu siinayaa madaxda iyo dawladda inteeda kale iyo shacabka Soomaaliyeed xuquuq iyo waajibaad kala duwan qola kastana waxa laga rabaa inay xuquuqdeedana fiirsato waajibaadkeedana gudato waxaan aaminsanahay marka arrintaas dawladdu inay aad uga gaabisay waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dawladda u dhaxeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin arrintaas waxay dhiiri gelinaysaa in dalku kala furfurmo waxaan u aragnaa khatar soo waajahaysa dawladnimada Soomaaliya sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idin sheegno inay habboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiiri geliyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed wadajirka maamul goboleedyada dadkana dawladana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiibaan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacayana lama habboona sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dawladda iyo u dhaxeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo taas waxaa sii dheer kalsooni darrada sii kordhaysa oo shacabka ku dhacaysa waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorashaduna waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda waxaan ognahay dawladdu inay kaligeed gacanta ku hayso nidaamka doorashada una dhigayso sida ay doonto sidaas oo kale waxaan ognahay arrimaha amnigu inay faraha ka baxeen oo weerarada ka dhaca hadda meesha saldhigga oo dawladda magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin kuwa hore cabsidu inay sii kordhayso sidaas oo kale dawladda waxa loo abuuray inay u adeegto bulshada waxyaabaha soo kordhay waxaa kamid ah in jidadku sida afayeenka oo sheegaba shirkaanu waxa looga hadlayay xaaladda dalka iyo gaar ahaan shirka hadda xalana ka socda sida wada ogtihiin dalkan dawladnimada hadda socota burburkii kadib dad Soomaaliyeed oo waxgarada ay isu tagay waxay soo qaateen nidaam federaal annaga intii aan joogna meesha cidna nama weydiin federaal ma rabtiin ma rabtiina lama dhihin laakiin waxaan ku khasbanay inaan hogaansano wixii dadku ku soo heshiiyeen Soomaalidu ku soo heshiiyeen haddii la rabo marka in laga guuro nidaamka federaalka waa in haddana lagu heshiiyaa waxyaabaha marka aan ka walaacsanahay oo aadka aan uga soo horjeedno in sharcigana la jibiyo federaalkana la dumiyo waxaan u aragnaa taas inay horseedayso burbur dawladeed waxa dawlad lagu yahay waa dastuurka waxa la rabo in la wada ilaaliyana waa kaas qolada ugu horeyso aan rabno inay ilaaliyaan dastuurkana waa dawladda dastuurku wuxuu siinayaa madaxda iyo dawladda inteeda kale iyo shacabka Soomaaliyeed xuquuq iyo waajibaad kala duwan qola kastana waxa laga rabaa inay xuquuqdeedana fiirsato waajibaadkeedana gudato waxaan aaminsanahay marka arrintaas dawladdu inay aad uga gaabisay waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dawladda u dhaxeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin
arrintaas waxay dhiiri gelinaysaa in dalku kala furfurmo waxaana u aragnaa khatar soo waajahaysa dowladnimada Soomaaliya sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inay habboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiiri geliyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed wadajirka maamul goboleedyada dadkana dowladana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiibaan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacayana lama habboona sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dowladda iyo u dhaxeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo taas waxaa sii dheer kalsooni darrada sii kordhaysa oo shacabka ku dhacaysa waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorashaduna waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda waxaan ognahay dowladdu inay kaligeed gacanta ku hayso nidaamka doorashada una dhigayso sida ay doonto sidaas oo kale waxaan ognahay arrimaha amnigu inay faraha ka baxeen oo weerarada ka dhaca hadda meesha saldhigga oo dowladda magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin kuwa hore cabsidu inay sii kordhayso sidaas oo kale dowladda waxaa loo abuuray inay u adeegto bulshada waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid ah in jidadku xiran yihiin laba isu gudbi karta aysan jirin qof walba la weydiinayo dowladda ma u shaqaysaa marka su-aashu waxay tahay oo dalkan xaq uma laha miyaa inuu ku socdo ku safro magaalada dhexdeeda ama banaankeeda qof aan dowladda u shaqayn arrintaas marka waxay saameyn ku yeelatay kala xiraashada magaalada waxay ku yeelatay saameyn dhaqaalaha waxa laga hadlayaa waa dhaqaale muxuu ku yimaadaa muxuu ku kordhaa waa in badeecaduhu ay isu gudbi karaan waa in dadku isu gudbi karo waa in dhiirigelin ay jirto dadku inay wax soo saar u jeestaan taasna waxaa saldhig u ah amni iyo cadaalad labadiina ma jiraan maxaan ku idhaahdaa mararka qaar marka laga hadlo wax lagu dhaliilayo dowladda dad badan waxay u fasiraan si aan habboonayn in la dhaliilo dowladda waa waxa axsaabta loo sameeyey axsaabta waxay u taagan yihiin inay dhaliilaan dowladda toosiyaan waxay u taagan yihiin inay soo bandhigaan barnaamijkooda siyaasadeed ee loogu diyaar garoobayo doorashooyinka marka shacabka Soomaaliyeed waxay u soo mareen inay inta hadda ay haystaan ay helaan dadaal fara badan iyo sabar badan iyo dhibaatooyin fara badan marka waxaan leenahay ma habboona in maanta annagoo joogna dib loo celiyo annagana ma habboona inaan fiirsano ka aamusno waxaad wada ogtihiin aniga madaxweyne xasan madaxweynaha markii la doortay labada garab aan ka istaagnay commitment-yaan siinay inaan la shaqaynayno laakiin dhinaciisa ka shaqay weyse qof walba oo hadda wax tabanaya ama ha noqdo maxaa la yidhahaa madaxweynaha maxaan ku idhahdaa Jubbaland Axmed Madoobe ama ha noqdo Siciid Dani labaduba shirkii Garowe aan ku galnay waxay diyaar u ahaayeen oo soo bandhigeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dowladda laakiin madaxweynuhu asaga qaatay shirki ka dambeeyay oo la isugu yimidana waa lagu heshii waayay dowlad goboleedyada kale oo hadda shirka fadhiyana sidoo kale u ballan qaadeen dalkan waa dowladnimadiisu hadda kabashay ku jirtaa ma rabna in dib loo celiyo waxaan rabnaa in la ilaaliyo dastuurka waxaa la jebiyey dastuurkii waa laga leexday meelaa la iska dhigay waxa aan dowlad ku nahay oo aan ku kala dambayno aan ku wada soconana waa dastuurka haddii dastuurka meel la iska dhigana dowladnimo ma jirayso marka annaga waxaan rabnaa inaan farta ku fiiqno khaladaadkaas muuqda oo aan laga aamusi karin oo ay suuragal tahay dowladnimadu inay u dunto inay yihiin kuwa khatara dadka Soomaaliyeedna ay ku baraarugaan waxa aan ka hadlayno waxa naga hadal siinaya hadal jacayl maaha waxa naga hadal siinaya waaqic jira xanuun dadka Soomaaliyeed taabanaya khalad waaweyn oo jira oo taariikhi oo laga aamusi karin oo qofka ka aamuso bari su'aasha la weydiin karo qarankan marka uu dhumaayo oo uu dumaayo qofka wax gartay inuu ka aamuso maaha dowladnimaduna waa wax la qawaacid iyo usus ay ku taagan tahay haddii laga leexdo dowladnimo lama arkaayo kursiga waa lagu tartami karaa wax culaysa ma leh laakiin waxaa la rabaa dowladnimada inay noqoto mid la wada leeyahay laga wada shaqaynayo qof la arkaba uu ka taagan yahay geestiisa kana celiyo
hadday noqoto dowladnimo dad kooban gacanta ay ku hayaan waxay doonaan ka sameeyaan arrintaas waxay keenaysaa khatar weyn maalin walba waxaa laga hadlaa dhaqaalaha kordhay shaqo abuuraa la helay marka aad weydiiso dadaa shaqada laga saaraa haddii xataa dad la gelinayo kuwa hore ugu jiraa laga saaraa dhaqaalaha ma wuxuu kusoo kordhayaa jidadku inay xirmaan oo wax soo saar uusan jirin oo wax isu socon kara aan la arkin dowladda dadka marka ay ku dhex jiraan laba cadow oo midna al-shabaab yahay midna oo dowladda yahay dhaqaalaha meesha uu ka kordhay annagu ma garanin ma beerihii wax soo saar ku kordhay ma warshadaa la keenay ma dad shisheeyaa maalgashi samaynaaya ma soomaaliya maalgashi keentay waxay u baahan taha dhaqaale inuu kordho political stability u baahan political stabilityna ma jirto maanta qof dowladdaas ka tirsan ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo oo loo ogol yahay inuu xaqa ka hadlo ama runta sheego ma jirto annagana hadda asbaabta loo qaylinaayo oo maalin walba laysu caynaya waxaa ugu badan maxaa runta u sheegaysa cimrina waa joognaa xilkii ugu weynaayna waa soo qabannay maanta maalinaan aamusi karna ma aha kumana baqayno wiilal yaryar oo masaakiina oo ama qurbaha jooga ama laman rabaabiyey ee la soo adeejiyey ay caytameen annaga xaqa ugama istaagayno dalkan annaga waxaan soo hogaaminay iyadoo xaaladiisu adag tahay falilaahi alxamdu in laysdoortaan keennay waa nagala guulaysta waxaan dhahnay wakaas maalinna ma hor istaagin laakiin wixii aan ku soo dadaalno marka ay dumayaan waxaan ku khasbannahay inaan u istaagno mar kale oo aan idhaahdo maya qaranka yaa la dumina waxaana aaminsannahay dowladdii maxamed siyaad barre iyo dowladihii ka horreeyey haddii soomaalidu u istaagi lahaayeen sidaasoo kale waxba nagama hallaabeen adduunka kaligeen maahin xurriyaddu waa shay qaali ah mana laga tanaasuli karo xurriyatu lqowlka ama xurriyatu tanaqul ama xurriyad ayan kaanad waa inay dadku haystaan markaasay dareemi karaan dowladdu inay dowladdoodii tahay aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan u dhaafayaa madaxweyne xasan sheekh isagaa dhamaystira insha allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدحوين الشريف آدي آد أماتسن يهي آدي آد أيو وفاهي حقائق أما حقيقة دبتا إمانتا كجرت دالكين وحا مهمكا وحيهين وحا لسل أقياي إن لسكوع العليا معنا بدل ما سمينيها لكن إن لفهم انت وضد لصوم مرئي وحي للشاقي يودن أنه haddii aan hadday xukun jacayl tahay iyo haddii tale far adeegi tahay iyo madaxweynahana uu ka hadlayo dhowr maro horena waa ka hadlay annagaaba soo dhignayba geedda annagaaba muxuu ahay diyaar u ahayn wixii shalay annagoo aan marka xukunka iyo talada uga tagnay xushmadda dadka codkiisa aan u hayn rabitaanka dadka soomaaliyeed codka dadka soomaaliyeed ilaalinta dadka soomaaliyeed wixii ay ku heshiiyeen oo waxaanaan sidaanaan dowladnimada noocaan ahaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa xukunka in laysu badbedelaan rabnaa siyaasaddu inay midbaas tala badan ku jirta tahaan rabnaa nidaam federaalism oo midka qarankan uu naga dhexeeya midka kalena shu-uuntayna hoose aan u kala dhaqanaan rabnaa dadka hadalladii ay yiraahdeen ayaa annagu aan ku daba joognay aayado qur-aana maaha xeerarka iyo nidaamka dadku ay degsadeen ay ku heshiiyeen laakiin waa ognahay oo xeer weligan uu noo deganaa jiray haddii uu shaqayn waayo ama dhibaata ka timaado intii degsatay intii isku timaaday tiraa xeerkan waana anfici waaye dhibkaanuu keenay mushkiladdii aan rabnay inuu xalliyo wuu xallin waaye warsaan ha la yeelo laakiin waa tuuraynaa beddelna uma hayno laakiin asiga magaciisa intaan sheegnaan annaguna sidaan rabnana waa ka yeelinaa waxyaabaha muxuu ahay dhibaatadu ay ka jirto waaye horeyaana loogu soo arkay dowladdii dalkan ka jirtay markay xeerarkii iyo nidaamkii iyo shuruucdii iyo rabitaanka dadka iyo dareenka dadka ilaalin weyday ayadoo midaan maanta haysana ka xoog badan oo ka awood badan oo ka magaciisa badan ay duntay ay shaqay weyday marka waayo aragnimaan u leenahay da'deedii aan joognaa waa soo joognay waa soo aragnay wixii shalay aan ku qaladnay mar kale inaan ku qaldanno ma rabno dowladdeenna waa dowladdeenni haddaanan dowladnimo rabin oon qaranku inuu dhismo aanaan rabin dowladdan maanta waxay samaynaysay walax kasi dhib badan aan samayn lahayn annaan samayn karnay weliba laakiin waxaan u samayn weynay oo gacnaha naga dabraayay xeerka iyo qaanuunka jira rabitaanka dadka inaan dhowrno oo annagu aan adeegayaal ahayn oo dadkuna adeegsadeen ii soo qaba shaqadan bes waa mahadsan tahay inta iska dhigay caliga ii soo qabanaya maalinta dambena haddiina la yidhi
inaan u hoggaansano qaban waxaan ka hadlaa marka inaan rabo intii dowladnimada Soomaaliyeed la soo dhisay carta laga soo bilaabay ilaa maanta aan joogno waa dhutinayna waxaan la dhutinaynay Somaliland naga maqan war walaalihii hal la jiriyo oo hal la waxeeyo madaxweyne Shariif waqtigu madaxweynahayna waa ogtihiin juhdi uu ku bixiyay aniga intaan taladahay waa ogtihiin juhdi aan ku bixinay mar walba dadka Soomaaliyeed aan rabitaankooda ka turjumayn oo midnimada iyo walaaltinimada in dalkii la isku soo noqdo rabeen sida afayeenka oo sheegaba shirkaanu waxa looga hadlayay xaaladda dalka iyo gaar ahaan shirka hadda xalana ka socda sida wada ogtihiin dalkan dowladnimada hadda socota burburkii kadib dad Soomaaliyeed oo waxgarada ay isu tagay waxay soo qaateen nidaam federaal annaga intii aan joogna meesha cidna nama weydiin federaal ma rabtiin ma rabtiin lama dhihin laakiin waxaan ku khasbanay in hoggaansano wixii dadku ku soo heshiiyeen Soomaalidu ku soo heshiiyeen haddii la rabo marka in laga guuro nidaamka federaalka waa in haddana lagu heshiiyo waxyaabaha marka aan ka walaacsanahay oo aadka aan uga soo horjeedno in sharcigana la jibiyo federaalkana la dumiyo waxaana u aragnaa taas inay horseedayso burbur dowladeed waxa dowlad lagu yahay waa dastuurka waxa la rabo in la wada ilaaliyana waa kaas qolada ugu horeyso aan rabno inay ayna ilaaliyaan dastuurkana waa dowladda dastuurku wuxuu siinayaa madaxda iyo dowladda inteeda kale iyo shacabka Soomaaliyeed xuquuq iyo waajibaad kala duwan qolo kastana waxa laga rabaa inay xuquuqdeedana fiirsato waajibaadkeedana gudato waxaan aaminsanahay marka arrintaas dowladdu inay aad uga gaabisay waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dowladda u dhaxeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin arrintaas waxay dhiiri gelinaysaa in dalku kala furfurmo waxaan u aragnaa khatar soo waajahaysa dowladnimada Soomaaliya sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idin sheegno inay habboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiiri geliyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed wadajirka maamul goboleedyada dadkana dowladana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiibaan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacayana lama habboona sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dowladda iyo u dhaxeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo taas waxaa sii dheer kalsooni darrada sii kordhaysa oo shacabka ku dhacaysa waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorashaduna waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed waxay u baahan